ما هاس كلا وعرن أبنوي نكاس هذا سيدي حتى بأنكو شيء هدي عن عرضاس كروسية كبحين وناجي لمسود وينين تيل ويني يبخردي سيد وناكسن dadka muqdisho lagu yaqaanay martisoorka lagu soo dhaweeyay aanu garashiye ka bixin sida hore u sheegaba arintan waa arin maamul habka maamulka iyo habraacidiisa ayaan mari doonaa waxaana ka dawlad adiga horta suxufi ah qofkii bulshada la wadaagi lahaa markasta wixii soo kordha oo adiga laakiin anigu hadda arintan dadka gobolka Banaadir anaga aan matalo oo aan mas'uuliyad u hayno ka kaceen oo dadka ku shiday waa in ninka odaga ah oo garab siiyay cadowgii Soomaaliyeed cadowgii islaamka cadowgii gobolka Banaadir ee al-shabaab iyo hogaamiyahooda oo basi balaariyo oo gaarsiiyay to the level oo madaxweyne iyo dawlad ku tilmaamo arrinkaas weeye marka innagana xafiiska waxaan u joognaa waa bulshada waa dadka gobolka Banaadir haddii dadkii ay noo yimaadeen oo cabashadaas ay soo gudbiyeenna annaga tallaabada keliya oo aan qaadi karno waa inaan dadka rabitaankooda ku shaqeyno oo aan ninkaas u yeerno oo aan su'aal weydiino oo aan la xisaabtano waayahay hadalka boqorka markuu lahaa mudane gudoomiye waxa garab taagnaa wasiir ka tirsan xukuumadda maxaa haboonaa in markaa falcelin ah u muujiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Carab oo markaa garab taagnaa boqorka markuu hadalka hadda aad sheegaysa u lahaa wasiirka arrintaas jawaabteeda isaga ka sugeynaa bulshada gobolka Banaadir baaqiyo badan oo kala duwan iyo arrintaas uga dirtay kulliba u maleymaayo inuu arrintaas ka aamusnaan doono oo ku asbanaan doona aragtideeda inuu dadka la hadlo oo arrintaas ka qanciyo uma maleynayo in wasiirku uu burmadu ninka la yiraahdo oo la qabo arrintaas oo Cabdullaahi wasiirku waa nin dalkan joogay oo og dhibaatada nimankaas ummadda u gaarsiiyeen dhibaatada ay u gaarsiiyeen bahda oo sida gaarka muddo dheer oo ka tirsanaa oo odaga ugu ahayo waxbarashada ama deegaanka uu matalo ruuxeeda runtii nasiib darro weyn ayay ahayd wasiirka oo garab jooga inuu arrintaas yiraahdo sidoo kale waxaa garab joogay xeer ilaaliyihii hore ee dalka oo arrimahaas oo kala ba ninkii dacwooyinka ku soo oogu jiray ahaa oo hadda aanu isagu xafiiska fadhin wasiirku ma garan karo inuu khudbada uga dambeeyay in kale laakiin sida hadda aan aragnay wali arrintaas kama soo jawaabin waxaan wasiirka ka codsanaynaa inuu dadka gobolka Banaadir la hadlo oo arrintaas maartay sida ay la tahay iyo anigu sida horeba u sheegay oo maleynay inuu la qabay inuu bulshadiisa iyo dadkiisa oo wasiirka u yahay oo ka qanciyo si gaar ah wasaaradda waxbarashada nimankan cadowga ee al-shabaab hadda waxaa weli sii qoyan dhiiggii ay u geysteen iskuulkii hadda la weeraray waxaa ka sii horeeyo aad garan kartaan in hadda ka hor wasaaradda waxbarashada la weeraray waxaad garan kartaan in harkaha iyo saamaha la weeraray waxaad garan kartaan macallimiin la laayay marka si gaar ah oo aniga aan aaminsanahay inuu dadka kale uga xanuun badan yahay yaa muxuu ahaa isaga ay weliba u taabanaysaa marka waxaan rajaynaynaa in wasiirku uu dadka la hadlo oo arrintaas ka jawaabo yaan maaragtay insha Allah yaan rajaynaa waayahay gudoomiye waxaan rabaa dhibka dadka haysta gaar ahaan koonfur haddii dhaqankii qayb ka mid ah ay aaminsan tahay in dadka dhibka geysanaya ay yihiin dad saldanad ah maxaa la gudboon cuqaasha iyo waxgaradka kale ee Soomaaliyeed ma yasaas kulama qabo dadka gobolka Banaadir jooga ma aaminsana in dhibaatada cadowga al-shabaab uu u geysanayo uu reer gaara ka dambeeyo oo ninkan hadda taanbar madow la yiraahdo reerkiisa ama dhankaas la xijiyo aniga ma qabo nimanka waa niman cadowga waa niman argagixiso ah waa niman xubaan ku midoobay oo qabiil kasta ka kooban oo maanta qabiil Soomaali oo muxuu ahaa ka maran aan jirin laakiin nasiib darrada waxa weeye inuu barmadow isagu sheegtay oo uu yiri innaga ayaa xukuna ninkaasna waa innaga
arrinta oo runtii aad annaga dabka noogu sii shido waxa weeye inuu u aqoonsan yahay dowlad oo haddii aan ka been abuuraynin uu yidhi laba dowladooda jirta midna reerahaas baa xukuumadta kalena innaga ayaa xukunna marka laakiin ma ahan arrin oo leeyahay reer waqooyi baa dagaal koonfur ku soo qaaday sidaas saas maaha waayahay si kale haddaan u dhigo dhibka dalka haysta gaar ahaan dhibka wuxuu ku badan yahay gobollada koonfur dhaqankii cuqaashii waqooyi haddii ay leeyihiin dadka dhibka geysanaya innaga ayay saldanad inoo yihiin ay dowlad markaa aan aaminsanahay qayb ka mida ay leeyihiin waxay tahay su-aashu dhaqankii koonfur cuqaashii waxgaradkii ugaasyadii salaadiintii koonfur oo dhibka ugu badan iyagu ku duldhaco maxaa la gudboon waxaan u malaynaa walaalow in ninkan aanu matelin dhaqanka waqooyi waa sidaas dhaqanka waqooyi waa dad soomaaliyeed oo runtii garan kara dhibaatada ay nimankaasi ummadda soomaaliyeed iyo koonfur ku hayaan iyo ummadda islaamka iyo ummadda caalamka intaba waa dad qiimo iyo sharaf leh oo dhibka nala qaybsada waxaad garan kartaan gargaarkii ay nala soo gaareen markii qaraxii soobo oo kale waxaad garan kartaa gargaarka ay koonfur iyo muqdisho la soo gaareen markii abaaruhu ay koonfur ku dhufteen waa dad soomaaliyeed oo wanaagsan oo qiimo leh oo anigu aan hubo in aanay ninkan barmadooda waxaan uu sheegay ee xumaanta ah ee xaasinimada ah ee jeesjeeska ah aanay la qabin yaan hubaa waxaan rajaynaa inuu degdega arrintaasi ummadda garowshiyo oga siiyo oo soo hor istaago odayada dhaqanka ee koonfurtu waa dadkii isagoo xamar u yimid arrin siyaasadeed haddana gogolaha u dhigay oo sharfay oo soo dhaweeyey oo soreeyey oo qurxiyey oo wanaajiyey oo weyneeyey in iyagii uu maantay odayaashii sidaas ahaa ee wiilashooda la laayay muxuu ahaa ilmaha awoowaha u yimid agoonta laga dhigay uu ugu abaal celiyo inuu maaragtay gudano taageero waa runtii arrintaas waa arrin looga baahan yahay odayaasha dhaqanka ee gobolka banaadir inay dib uga laabtaan muxuu ahaa isagana dib ugu yeeraan waxaana ka weydiiyaan sidaas runtii gogashii lagu sooray ee lagu soo dhaweeyey oo ninkaasi u dhaamay waa hagaag waa kuusoo gabagabinaya dhowaan guddoomiye cali yare hadalhayn ah in dhibka uu ku kooban yahay koonfur ayaa muddo badan la hadal hayay ma u muuqanaysaa inay wax ka jiraan ama fasiraad ay u tahay hadalka buurmada uu ku hadlay anigu sidaas ma qabo sababta aan u leeyahay waxaan garan karaa dadka waqooyi jooga waa dad runtii dhaqanku kuwan yahay dadnimadu kuwan tahay insaannimadu kuwan yahay nabadu kuwan tahay oo aad runtii nabadda u jecel haddee waa meeshii laga dhihi jiray muxuu ahay maamahayadiisi saxadoo mahaye malay saasaba aduu qormiya wixii hadda aad u mahayo wax sidaas u eg weeye umana aaminsan inay la qabaan waasa jiraan dad arrinta sidaas u ekaysiiya iyo dhaqamo sidaas u eg oo marmar la arko oo hadda midaan ninkan odaga oo barmadooba oo kale wax saas oo kale marmar waa la arkaa mase lihii waa aaminsan yihiin ama waa wada aaminsan yihiin gudoomiye cali yare waxaad ka mid tahay maamulka gobolka banaadir oo boqorku markaa soo dhaweyn wanaagsan u muujiyey muddooyinkii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeysay uu muqdisho joogay hadalka marka haddii gaf uu markaa maamulka ula muuqday iyo shacabka muqdishoba gobolka banaadir baaqa aad u jeedinayso boqor burmadow oo weli muqdisho aan ka bixin ee jooga muxuu yahay guddoomiye baaq uma jeedinayo ninkaas odaga ah waa anagu maamulaan nahay wixii baaqa waxaa la gudboon odayada dhaqanka iyo bulshada rayidka inay jeediyaan innaga maamulaan nahay maamul baaq ma jeediyo maamul dadku la xisaabtamaa qofkii wax wanaagsan sameeyana wuu abaal mariyaa qofkii wax xun sameeyana ciqaabta u dhiganta ayuu marsiiyaa innaga ninkaas odagaa waxaan leenahay wali magaaladan si wanaagsan oo bulshada gobolkan joogta aanay u kala harin yaa lagugu soo dhaweeyey oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka xubnihii labadii aqal iyo bulshadii reer muqdisho iyo gobolkii banaadir dhammaan maantana waxa aad dhaantay waa gogashii lagugu soo dhaweeyey
innagu waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo haddii uusan arrintaas garowshiye ka bixin inaan u marno hababka sharciga oo caadiga oo loo maro dadka muxuu ahaa al-shabaabka iyo al-shabaab ismaajiska dadka oo shabaab muxuu ahaa qalbiga kala jira si toosa iyo si dadban intaba halkaasaa la mari doonaa waxaan geyn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo baridaan ugu horeysa xeer ilaalinta waxaan habka maamulka oo caadiga ayaan mari doonaa haddii ilaahay waxa sidii hore baan u sheegana waraysigaasi warkaas wax inta la dhegeysto sidaas looga gudbi karo maaha waa wax mudan in la iskula xisaabtamo gudoomiye cali waxaan rabaa cid kasta oo bari ka maalin ku dhiira doonta arrintaas tallaabada aad qaadaysaan haddii boqor buurmadow uun arrintan ka hadlin raaligelin ka bixin odayaasha hadalkooda uusan dhegaysanin gudoomiye adigoo maamulka gobolka banaadir afkiisa ku hadlaya tallaabadaad qaadaysaan maxay tahay anigoo ku hadlaya xafiiska amniga arrintan waa arrin amni al-shabaab arrinteedu arrin oo maahaas kale arrin amni weeye ninkaas odagaa sidii haddaba aan kuu sheegay haddii aanu arrintaas garowshiye ka bixin oo wanaagii lagu soo dhaweeyey iyo weyniintii la weyneeyey iyo boqoradii sida wanaagsan dadka muqdisho lagu yaqaanay martisoorka lagu soo dhaweeyey aanu garowshiye ka bixin sidii aan hore u sheegaba arrintan waa arrin maamul habka maamulka iyo habraacyadiisa ayaan mari doonaa waxaana ka bilaabi doonaa inaan xeer ilaalinta geyno oo aan dacwo kusoo ogno